muuqaalkan waxaan ku baranaynaa desktopka ama oogada computerka iyo sidoo kale erayo muhiim ah oo si joogto ah u isticmaali doona inta computerka baranayno. Marka waa maxay desktop? Waa goob laga maamulo shaqooyinka, waana muuqaalka ugu horeeya ee ku soo muuqan karo marka computerka soo kacsid ama aad soo daartid. Waxaa laga maamuli karaa faylasha, galalka, barnaamijyada internetka iyo waxyaabaha la midka ah. Sidoo kale waxaa jira wax la dhaho desktop background ama daaha oogada. Marka desktop backgroundka muxuu noo qabanayaa ama daaha oogada wuxuu noo saamaxayaa in masawirka rabna aan saaran karno shaashada computerka. Waxyaabahan hadda shaashada dusheeda saaran ee noo muuqda ayagana waxaa loo yaqaanaa icons. Sidoo kale waxaa jira erayo inta badan si joogto ah u isticmaaleen inta computerka baranayno. Marka waxaa jeclaysta erayaas in hadda ay idin sii jilciyo. Waxaana ka mid ah click, right click, double click, enter, scroll down, scroll up iyo kuwo kale. Intaan hadda aan magacaabo marka sharaxi doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Click marka maxaa la dhahaa? Click waa gujin af Soomaali ahaan markii loo bedelo ergaas wuxuu noqonaa gujin. Tusaale ahaan taleefankaaga hadda aad isticmaashid marka jeebka kala soo baxayd ama boorsada ee aad rabtid inaad daartid meesha koowaad ee aad taabanaysid ee power buttonka taabashadaas aad taabanaysid waxaa la dhahaa gujin ama click. Right clickna muxuu noqonaa marka asna waa isla gujin dhinaca midig ah. Muuska computerka loo isticmaalo ama haddii aad laptop isticmaalay sidoo kale wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo qaybna midig ah qaybna bidix ah. Marka right click iyo left click la kala dhahaa. Kan hadda soo barana ee click ahaa waa left, waa dhinaca bidix waaye. Inta badan marka midkaas waa la isticmaalaa maadaama inta badan la isticmaalo waxaa loo doortay ereyga ah click in la iska dhaho. Marka leftigiisana wuu u qarsan yahay. Haddii lagu dhaho marka left click iyo haddii lagu dhaho click waa isku mid. Waa mid kale oo isticmaalka badan yahay. Right clickna waxaa la isticmaalaa marka rabtid shay ina informationkiisa aad ogaatid. Double click muxuu noqonaa markaasna? Double click waa asna isla clickii oo double laga dhigay macnihi laba mar laga dhigay. Labadaas marna waxay noqonayaan laba mar oo si darandoori ah. Marka taabashadaas labada mar darandoori loo taabanayo barnaamijyo qaar oo waxaa jira ku soo kaco oo hal mar haddii aad click si sidoo kale aan ku shaqeyneynin. Marka kuwaas oo kale waxaa loo isticmaalaa double click ama laba mar isxigta in dhagdhag la siiyo si barnaamijku uu noogu soo kaciyo. Sidoo kale waxaa la mid ah calaamada enterka ee falaartan qaloocan leh. Calaamadaas enterta marka shay aad dooratid ama barnaamij inta dooratid enter taabatid waa gudagali kartaayo sidii adoo double click siiyo kale uu kugu shaqeynaa. Sidoo kale double click marka sameynaysid waxaa isticmaalaysaa click hore oo soo baranay ama midkii ahaa left click. Kaasa double click laga sameeyaa. Scroll down iyo scroll up maxaa la dhahaa marka? Scroll down-ka ama scroll up-ka waxaa waaye asna in shaashada computerka dhinaca hoosna u socon kartid dhinaca korena u socon kartid. Marka mouse haddii aad isticmaalaysid muuska labada dhinac ee uu leeyahay dhinaca midig iyo dhinaca bidix dhexdooda wuxuu ku leeyahay bahal scroll la dhahay ama sida tire-ka ama cagto kale u samaysan. Marka fartaada marka si hore u riixdid wuxuu noqonayaa scroll up oo dhinaca kor u soconaa. Sidoo kale marka dhinaca u soo dilisid ama dhinaca u soo riixdo u soo jiijidid wuxuu noqonayaa asna scroll down. Marka casharkeena maanta intaas ugu muhiimsaneed. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.